dadweynaha ku dhaqan magaalada Oodweyne ayaa saaka u dareeray tukashada salaada roob doonta iyadoo ay maanta ahayd maalintii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ugu baaqay inay shacabku u dareeraan alla bariyo roob doon ayaa guud ahaanba dalka Soomaaliland looga dareeray tukashada labada ragcadood ee roob doonta dadweynaha reer Oodweyne oo saaka salaada roob doonta ku tukaday dooxa weyn ee Shimbireley ay tukashada salaada iyo ducada kala qayb galeen maamulka gobolka ka degmada iyo laamaha wasaaradaha waxayna madaxda iyo shuyuukhdu halkaasi ka jeediyeen ducooyin ay Ilaahay kaga dalbanayeen inuu abaaraha ka saaro isla markaana raxmaadkiisa u soo dedejiyo waxa weeyaan ummadda waxa kala xumeeya ee samada roobkeeda laga fogeeyo labada qof ee caloosha wax isugu haya Ilaahay baryada kama aqbalo Ilaahay waxaan ka baryaynaa caloosheena isku mid ka dhigo Ilaahay waxaan ka baryayaa kuwii caloosha wax isugu haya inay xaqdiga inay naga dhigin إلهي تصرف يوم اسكمنا أولا أم مسلمة عنه إلهي بريئة ما تبري إلهي نقابله موسى سليمان محمد تلفزيون قرن كسومالان مقالة أودوين.